السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من حقوق المسلم على أخيه. حديث كان وحو نغو براروجينايا حقوق dadka muslimiinta isku leeyihiin qofka muslimka ah xuquuqda uu kugu leeyahay buu xadiidka inagu baraarujinayaa min xuquuq almuslim xaqa ama xuquuqda isku leeyihiin muslimiinta ala akhihi ay qofka walaalkiisa waxaa laga wariyay Abu Hurayra radiyallahu anhu Allah ka raali noqday ayaa wuxuu yiri xabiibkeena sallallahu alayhi wasallam ayaa yiri xaqul muslim ala almuslim khamsun رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس. حق المسلم قفك مسلم كأه حقيسة على المسلم قفك مسلم كأه دوشي سؤو كليهاي 5 ويان رد السلام سلام تردين تيذويان وعيادة المريض قفك جيران بوقشدي سويان واتباع الجنائز جنازوين كراعدود ويان وإجابة الدعوة يريده أجيب ديد ويان وتشميت العاطس قفكة هندسي ودعينتي سويان نبي حليه صلى الله عليه وسلم مسلمكو قفك لا مسلمك حقوق ذو كلية هي وحاكمة شن يعني شنتان كلية ما أهن حقوق المسلمين تا أي اسكوليهين ay shantan waxay ka mid tahay xuquuqda dadka muslimiinta ay isku leeyihiin bay shantan ka mid tahay raddu salaam qof muslim ah hadduu ku salaamo salaanta karidi isagu inuu ku salaamo waxa weeyaan waa sunna laakiin adiga inaad salaanta radiso waa waajib haddii qof muslim ah ku yimaado assalaamu calaykum oo ku yiraahdo hadaadu calaykum assalaam waraxmatullah hadaad dhihi weydo waa dambaawaysaa inaad salaanta radiso waxa weeye waa waajib waxaa kaloo ka mid ah xuquuqda la isku leeyahay in la isbooqdo qof muslim ah hadduu jirado inaad soo booqato waxaa kaloo ka mid ah xuquuqda la isku leeyahay janaasada inaad raacdid qof muslim ah hadduu dhinto janaasadii aad raacdid waxaa kaloo ka mid ah xuquuqda la isku leeyahay إجابة الدعوة قف مسلم هدو كو يرو أو كو يرهدو إيماو غوريغيغ إيماو هدي wax maanic ah uusan jirin oo inaad guriga tagto ka reebaya waa inaad guriga tagto oo aad ajiibto dacwadiisa hadii kale codad baa dhalan islaamkana daa'iman wuxuu ku dadaalaa muslimiinta qalbiyadooda inay isu fiyowaadaan marka qofka muslimka ah hadduu ku waco oo aad diido xumaata gali laakiin waxa weeye haddii inta ku yeero aad ajiibto xumaata ma galayso xumaatada way ka baxaysaa waxaa kaloo ka mid ah xuquuqda la isku leeyahay tashmiidul caadis qofka hadduu inta handisoodo oo ilaahay subxaanahu wa tacaala ku xamdiyo waa inaad u duceyso alxamdulilah markuu yiraahdo waa inaad yarxamukallah يرحمك الله إن أدهض ويان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.